السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waan idin salaamay khiyaarta dhammaantiisa aad u dhantihiin halkaad igala socotaan waa janalka ladan cabdow. Fadlan dhageysto haddii aad igu cusub tahay janalkiina subscribe gareegan balalkan aan ka dhigo si uu kuu soo gaaro muuqaal kasta oo aan soo share gareyna biidhnillah. Haddii aad nala joogtayna waad ku mahadsan tahay la joogistaada qiimeyntaada quruxda badan. Fadlan commentiga waa ii muhiim waayo waa ii dhiirigelin, like ta iga iloowin waayo muuqaalkeena ayaa meel sare tagay insha Allah. adigana waxba kugu maahan, anigana waa inoo faa'iido. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan. waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso run ahaantii ku saabsan faa'iidada ay leedahay salaatuleylka. qisadan ma ahan qiso iska mala awaal ah ama meel laga soo aqriyay. qisadan waxaan ka maqlay oo run ahaantii aan ka dhageystay sheekheena Cabdirashiid Cali Suufi xafidahullah. ilaahay xafido annagana dhammaanteen ilaahay ha naga dhigo kuwii qaata waanadiisa. qisadan run ahaantii markii aan dhageystay wax badan ayaa iska keen bedelay. run ahaantii niyadeyda wax badan ayay jecleysatay in aan sameeyo sida uun waanada uu noogu soo gudbiyey. laakiin nafteeda waxaa ka dhibaayo oo weli bursan haya shaydaan. ilaahayna waxaan ka magan galay ani adigaba nafteena inuu ka qabto shaydaanka inoona fududeeyo acmaalka wanaagsan waayo tani waa adduun waa laga tegayaa. muhiimadda hadalkayga waxaa waaye maanta qisadan run ahaantii sheekha ayaan ka maqlay waxaana jecleystay inaan idinkan idinla wadaago. adigana ha ka baqiilin, la wadaag walaalahaaga kale si ay aga faa'iideystaan qisadan. haddaba qisadan maxay tahay, sidayse ku bilaabanaysaa? aan hore u galno qisadeeni insha Allah. qisadeeni sidatan ayay ku bilaabanaysaa. sheekha wuxuu dhahay waxaa jirta uu dhahay waagii hore in dadkii hore intaan diinta si fiican dadka aysan u fahminoo badanaa qur-aanka uu soo wada degin, waxaa jiri jirtay in addoommada lasoo kiraysto. waxaad tegaysaa magaalada tegay ama suuqaa tegay, qof addoon ayaad soo gadanaysaa, aad gurigaaga keensanaysaa. ninkan wuxuu dhahay wuxuu aaday magaalka, wuxuu doontay addoon, qof addoon ah. ilaahay baa addoon u nahay dhammaanteedna. gabar ayuu soo watay oo addoon ah. wuxuu keensaday guriga si ay shaqooyinkiisa ugu qabato. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ninkan wuxuu dhahay ilaa gabadhaas haddii aan arko waa maray sujuudsan tahay ama waa maray istaagsan tahay oo ilaahaygeeda ay baryayso, ay taagan tahay salaad ay u taagan tahay. wuxuu dhahay habeenkii nisfuleylka habeenka xilligiisa dambo salaada subaxna intaan lasoo gaarin adiga 8 saac ilaa 9 saac gabadhan oo istaagan oo salaad tukanaysa waxay igu leedahay markii salaada waxay leedahay maxaad u jiiftaa, maad kacdid oo ilaahaygaga miyaad aga mashquushay hurdada, maad istaagtid oo salaatuleylka ilaahaygaga baradid oo aad salaadaada tukatid. markaas waxaan dhahay hurda ay haysay iga leexo. hurdadiis ayuu iska sii watay. gabadhana wuxuu dhahay ilaa aan arko ama way sujuudsan tahay ama way salaad ayay u taagan tahay. wuxuu dhahay markay danteyda iyo xaajaadkayga kulli ay dhameyso salaad ayay iska xirataa oo salaad ayay iskaga istaagtaa. salaad ayuu istaagtaa. wuxuu dhahay waxaa dhacday habeen si iyadoo inta ay kacsi ugu daashay. wuxuu dhahay waxay leedahay iyadoo taagan ama ilaahay ayay baryaysaa oo waxay leedahay ilaahayow waxaad iigu dambi dhaaftaa jaceylka aad adiga i jeceshahay dartiisa iigu naxariiso, iigu dambi dhaaf ayay leedahay. ilaahay ayay baryaysaa. markaas wuxuu dhahay markii hadalkii aan maqlay waxaa dhahay su'aal ayaan ku celiyay. waxaan dhahay markay bogatay waxaan ku dhahay sidee ku ogaatay in uu ilaahay ku jecel yahay? waayo waa dhihi kartaa ayuu dhahay sheekha, ilaahay aniga waan jeclahay waa dhihi kartaa. oo wuxuu dhahay qofka niyadiisa iyo ilaahayga xiriirka ka dhexeeyo annaga wuxuu dhahay ma cadeyni karno, qofka asagaa is og. laakiin ma dhihi kartid in aad dhahdo ilaahay wuu i jecel yahay ilaa addoon ilaahay uu u nimceeyo mooye. markaasaa wuxuu ku dhahay sidee ku ogaatay inuu ilaahaygaaga ku jecel yahay? markaasaa gabadhii waxay ugu jawaabtay, waxay tiraahday ilaahay waxaan ku ogaaday inuu i jecel yahay wuxuu ii fududeeyey acmaasha wanaagsan. midda kale wuxuu dhahay waxuu ilaahay ii fududeeyey in aan qiyaamo
waxay tiraahday waxaan ku ogaaday ilaahay inuu i jecel yahay wuxuu ii fududeeyey acmaalaha wanaagsan midda ugu koowaadna waa salaatuleylka. waxay tiraahday adiga iyo kuwa kula mid ah ilaahay wuu siixiyey oo way hurdaan, anigana ilaahay waa ii fududeeyey inaan u istaago salaatuleylka. waayo waxay ugu gan leedahay waayo ilaahay waxaan ku ogaaday inuu i jecel yahay, salaatuleylka ayuu ilaahay ii khafiifiyey oo acmaashiisa ayuu ilaahay ii qurxiyey oo maanta 12 inaan ilaahay xuso ayuu ilaahay ii khafiifiyey dhahday. waxaana mahad iska leh dhahday ilaahaygii i waafajiyey xaqa, waayo ilaahay adiga iyo kuwa kula mid ah waa uu siixiyey dhahday oo salaatuleylka ma awoodid inaad kacdo oo aad tukato, anigana ilaahay waa ii fududeeyey salaatuleylka oo ilaahay ayaan u istaaganahay. ilaahayna waxaan ka baryayaa jaceylku i jecel yahay dartiisa inuu iigu dambi dhaafo oo iigu naxariisto, waayo asiga ayaan xilligan u taaganahay oo aan baryayaa ayay tiraahday. run ahaantii habeenkii qofka hadduu caafimaad ilaahay siiyo lixaadkiisa u dhammaystiran yahay ma jeclo inuu hurdada ka kaco, waayo waxa habeenkii badanaa soo ka kaco waa qof ilaahay doortay oo u fududeeyey salaatuleylka asigoo caafimaad qaba, ama waa qof xanuun lasoo kacay oo jiifkii qaban waaye. marka ilaahay subxaana watacaala ha naga dhigo kuwa uu u fududeeyey fudud u aga dhigay acmaashiisa ama salaatuleylka. siiba salaatuleylka ilaahay subxaana watacaala hanoo fududeeyo ilaahayna hanoo fududeeyo acmaasha wanaagsan sida salaatuleylka. muhiim waa salaatuleylka waa inuu maxaa lahayay inaad tukataa. ilaahay subxaana watacaala aniga iyo adigaba ilaahay hanoo fududeeyo, waayo waa hurdada xilligay ugu macaan tahay. ilaahayna wuxuu soo fadhiisanayaa samooyinka samada ugu hooseysa oo samaa dunya ayuu soo fadhiistaa, markaasuu leeyahay waryaa wax i weydiisanayo, waryaan waxuu isiiyaa, waryaasa ayuu ilaahay wuxuu dhahaa yaan ugu deeqaa oo wax kasta i weydiista aan siiyaa. annaga ma awoodno, shaydaanka ayaa naga xoog badiyey. ilaahayna hanoo fududeeyo salaatuleylka. nafteyda iyo naftaadaba ilaahay ha u fududeeyo, walaashayda ama walaalkayga salaatuleylka. waayo bili-aadanka markii aad baryaysid ama inaad maanta aad ahayd qof boqor qof wasiir ama qof waxaa rabtaa inaad la kulanto oo kaleeto, waxaad jeceshahay markasta inaad agtiisa ka muuqato, uu ku ammaano oo si lagu dhaho ishiisa haddii aad ku badbadato waxa aad sameynaysa lagu arko, waxaa isleedahay ninkan talo wuxuu ku dhihi doonaa qof fiican waaye ninkan ayaad isleedahay. ka waran haddii ilaahigaaga subxaana watacaala aad markasta agtiisa aad kula laabato oo aad u sujuuddo, asaga aad barido, salaatuleylka aad u istaagto, ilaahay subxaana watacaala wuu ku dooranayaa. markaas waxay noqonaysaa amuurahaagoo dhan inuu ilaahay subxaana watacaala kuu fududeeyo. albaabka adduunyadana qof intaad hor istaagto wax isii ma dhehaysid, waayo markii aad dan yeelato inaad habeenkii kacdo 2 rakac oo sunno tukato, ilaahigaagadana aad barido, ilaahayna wuu ku siinayaa. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa nafteyda iyo naftaadaba inuu ilaahay u fududeeyo salaatuleylka. balanteenu waa salaatuleylka insha allah. aniga kula hadlaayo waxaan rajeynayaa isla caawa inaan bilaabo, ilaahayna ha ii fududeeyo, adigana ilaahay ha kuu fududeeyo, walaalahayga dhammaantiina ilaahay ha idin fududeeyo. muhiimadda waa salaatuleyl. qisadan waxaan usoo qaadanay muhiimadeeda waa ilaahay subxaana watacaala inaan u istaagnaa habeenkii xilliyada la hurdo saqbarkii ama 9 saac ama 8 saac inaan ilaahay u istaagno. ilaahayna noo fududeeyo acmaasheena wanaagsan. ilaahay subxaana watacaala ha naga dhigo kuwa xaqa garta, ilaahayna u sujuuda markasto. laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir. walaalahayga ha ka xasdina walaalahaaga kale, muuqaalkan u sheergareeya. waxaa laga yaabaa haddii ay dhegaysato gabar walaasha ama wiil walaalka inuu istaago oo salaatuleyl uu tukado, amuurihiisoo dhanna ilaahay ama xaajaadkiisoo dhanna ilaahay sidaas uu ugu fududeeyo. insha allah nafteyda iyo naftaadaba waxaan ku dardaarmaynaa salaatuleylka. waxaan rajeynayaa qisooyinkan inaad meel dheer gaarsiin doontaan. waxaan jeclahay markasta inaan khayrka idin soo gudbiyo, adigna ha iga xasdino, walaalahaaga la wadaag. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad muuqaalkan sheer gareyn doontaan. Like-ta waa ii muhiim, commentigana waa dhankiina. waxaan idinka sii tagayaa qisadan qiso kaloo la mid ah tani kulanto dambe.